wiilkan dhalinyarta ah ayaa muuqaal ka duubay nool aan la garanayn waxa uu yahay misna ay aad uga argagaxeen xilli ay marayeen mid kamid ah wadooyinka waaweyn ee India si lamida ninkan ayaa habeenada kamid ah isagoo gaari wata wadada ka soo qaaday wiil ay yaraantooda saaxiib ahaayeen oo muddo 20 sano ah ugu dambeysay isagoo ugu dambeyn geeyay xaafad duurduur ah balse ugu dambeyn markii uu xaafadiisii tagay waxa loo sheegay in wiilkaasi 8 sano ka hor uu dhintay muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa shakhsiyaad la kulmay dhacdooyin cabsi badan oo ay adag tahay in la rumaysto korintan muuqaalka u gudagalin waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo taageerada wacan ee aad noo muujiseen si 100,000 aan u xirno waxaan go'aansaday marka 100,000 aan gaarno inaan hadiyad idin kaga dhigo qiso dhab ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku saabsan wiil dhalinyar ah oo isku dayay inuu la haasaabo misna guursado gabar jin ah iyo wixii ka raacay habeenkii uu la kulmay rumayso waa sheeko aad ku cajibin doonta haddii aad jeclaan lahayd inaad si dhaqso leh ku daawato sheekadaasi asxaabtaada u sheeg kanaalka ku soo biiraan wax ka yar 3,000 ayaa nooga haray 100,000 aan bilowna muuqaalka 27 Abriil ee sanadii la soo dhaafay 2021 wiil yar oo lagu magacaabo Deepak iyo asxaabtiisa ayaa waxay muuqaal ka duubeen noole aad uga fajiciyay dadka arkay muuqaalkaasi lana garan waayay wax ay tahay Deepak iyo dadkii la socday ayaa xiliga ka soo noqday janaasada hooyada mid kamid ah asxaabtiisa oo dhimatay kadib markay arkeen noolahan aad ku argagax badan waa kan muuqaalkii uu duubay Deepak ee ila daabo आगे थोड़ा चल बे चल ना कुछ होते हैं रिकॉर्ड कर भी नहीं रिकॉर्ड चल बूढ़ी dad badan ayaa ra'yi kala duwan ka dhiibtay muuqaalkan iyadoo dadka qaar xitaa ay ku tilmaameen in waxan ay yihiin jin ama noolayaasha hawada sare ee loo yaqaano aliens mid kamid ah suxufiyiinta ka howlgala jaraa'idada Times ee qaybteeda India ayaa bartiisa Twitter wuxuu ku soo qoray in waxa dadkan ay sheegayaan aynan ahayn mid sax ah ee waxa muuqaalkan laga duubay ay tahay haweeney faqiir ah misna dhar la'aan ah oo meeshaas iska socota adigu maxay kula tahay waa noole sidee ayaad aaminsan tahay dad ama jin ama wax kale tani waa Emma gabar iska da'yar oo ku nool mid kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka Emma waxay la nooleed gabar kale oo ay asxaab ahaayeen inta badan waxay isku tilmaamtaa inay tahay qof habeenkii nashaad leh oo jecel in uu habeenkii howl qabto ama in uu iska soo warwareego badanaa marka gabadha saaxiibadeeda ah ay seexato waxay iska aadi jirtay wareeg si cidlada guriga ay uga baxdo ku dhawaad 4 sano ayay sida ahayd habeenkii mar haday saaxiibadeeda seexato waxay aadi jirtay socsocod marna yacni ma dareemin cabsi ku aadan in habeenkii la dhibaateeyo oo waxay dareemaysay in ay nabdoon tahay wax ay ka baqdaan jirin si waxa soo idil waxay soo bedeli doonaan habeenada kamid ah waxay ahayd habeen Arbaca ah qiyaas 7 saac ilaa 8 saac habeenimo waxay socotay wado yar weyn oo xaafadeeda aan sida uga fogeyn habeen iska degan oo xogaa gawaari yar ay wadada socoto balse qofna uusan wadada lugeynaynin sida ay u soo socotay ay hal goor ka leexatay wada yar oo dhanka gurigeeda ku aadanay iyadoo rabta in xaafada ay dib ugu laabato marka wadadii ay si toos ah u soo gashay ay hal mar aragtay humaaga nin oo wadada qaybteeda shishay ku dhaansi gareynaya si qofka ciyaarka uu ninkan dheelayo ma ahayn wax ay horay u aragtay mana ahayn qof meesha iska taagan ee asagoo daansigiisa wata ayuu dhankeeda u soo siqaayay durbadiiba waxay iska dhaadhicisay in uu ahaa qof khamri soo cabay inta ay istaagtay ay wadada dhinac isku ciriirisay si ay ugu baneyso meel uu maro hal mar ha ku dhaafo ayay ka ahayd ninkii sida uu u soo dhawaanayay ayay hal mar waxay si fiican u aragtay wejigiisa oo dhan wuxuu lahaa indha aad u waaweyn misna si daran loo kala furay madaxiisu xoogaa gadaal ayuu u janjeeray sida qof cirka eegayo kale sidoo kale wuxuu u dhoola cadeynayay si daran waxaad moodaa dhoola cadeyntii kaartoonada oo kale inta markay aragtay iyo wejigiisan argagax badan jirkoodoo dhan ayaa xaad kacay cabsi daran ayaa qabatay maysan sugin ilaa uu dhaafo ee ayadoo socod boobsiinaysa ayay wadada dhanka kale u goysay marka dhinaca kale ee wadada ay taagan tahay ayay dhankiisa soo eegtay waxay aragtay ninkii oo isagana dhankeeda soo eegaya misna ku taagan hal lug indhihiisa iyo afkiisana sidii ayay weli yihiin oo wax yar xitaa iskama bedelin turbadiiba inta ay ka jeesatay ayay bilowday inay socod boobsiiso iyadoo markasta gadaal u soo fiirinaysa ninkii asna uu weli meeshiisii taagan yahay dhankeedana uu soo eegayo sida ay u soo socotay marka ay isgoyskii ay tagtay ayay hal mar ku mashquushay wadada si ay isaga eegto gawaarida soo socota wax u dhow 10 sekin kadib markay dhanka ninkii soo eegtay waxay aragtay meeshii uu eber ah qofna uusan joogin xoogaha yar ayay neef qaadatay iyadoo isle wuu baxay balse isla markii waxay aragtay ninkii oo isna soo gooyay wadada leenkii ay iyada joogtayna imaaday una muuqda qof xoogaha yara furaarsaday sida in uu isqarinayo kale naxdin darteed waxay awoodi weysay in ay dhaqaaqdo iyadoo meeshii ku qalashay ninkiina
indhaha ku haysa isla markiiba wuxuu bilaabay in dhankeeda uu usoo dhaqaaqo weliba si xawliha isagoo u socda iyadana ay meeshii ku qalashay xitaa ay awoodi la'adahay in ay qayliso sida uu usoo socday marka qiyaas 1 mitir oo kale uu usoo jirsaday ayuu istaagay wejigiisana uu weli sidii yahay indhihii waaweynaa iyo qosolkii inta ay isxakameyn kari weeday iyadoo codkeeda cabsi weyn ay ku jirta ayay tiri maxaad iga rabtaa waxba su'aasheedii loogama jawaabin muddo sida uu u hortaagnaa isagoo xitaa wax yar nuxsanayn ayuu hal mar si tartiib ah uga jeestay wuxuuna bilaabay sidii hore oo kale inuu daansi gareeyo isagoo dhankeeda kasii dhaqaaqaya Emma weli meesheedii kama dhaqaaqin oo waxay eegaysaa ninkan ilaa cabaar marka uu u jirsaday xoogaa humaagna uu soo galay oo si fiican aynan u arag ayay dareentay in ninkii uu joojiyay daansigii misna uu istaagay wax yar marka uu taagnaa ayuu hal mar dhankeeda mar kale soo aaday markan isagoo soo ordaya iyadiina inta ay afka furatay qaylo ayay cagaha wax ka dayday ilaa ay tagto meel xoogaha ay dad joogaan marka gadaasheedii ay eegtayna ma aragto ninkii ugu dambeyn waxay sidii ku timid xaafadeeda mar dambe habeen ma bixin kaligeeda iska daa saqdhex kadib inay socotay 6 bilood kadibna waxay ka soo guurtay magaaladii oo dhan dhacdadan waxay qabsatay qof lagu magacaabo Barb xil uu jiray da'da 37 sano ayuu wuxuu aaday magaaladii yaraantiisa uu ku soo koray misna waxbarashada iskuulka uu ku soo dhameeyay si uu dib ula kulmo saaxiibadiisa yaraanta ay iskuulka wax iskala soo barteen iyo dad badan oo kale oo qoyskiisa ka tirsan sida caadada ahaydba marka uu ka soo degtay garoonkii wuxuu soo kireystay gaari isagoo sidoo ku soo aaday xaafadda reerkiisa qiyaas 5 kiiloomitir oo kale markuu u soo jiro xaafadii ayuu wuxuu wadada ku arkay qof gacan u haatinaya una muuqda in uu rabay lift free ah marka gaarigii uu istaajiyay si uu u qaado qofka wuxuuba ku noqday nin yaraantooda iskuulka ay isla soo dhigteen oo lagu magacaabo Jim ku dhawaad 20 sano ka hor ayaana ugu dambeysay Jim wuxuu u muuqday isla sidiisii oo isma bedelin dabcan xogaa yar waxa ka muuqday inuu weynaaday laakiin sida kale marka laga eego waa isla sidiisii oo kale yani qof xogaa da'weyn uma ekeenba almuhim gaarigii ayuu soo raacay sidii ayna ku bilaabeen inay ku wada sheekaystaan marka xogaa la sii socdo ayaa Barb ku yiri Jim niyo xaflad caweys ayaan qabsan rabnaa dhammaan raggii aan isla soo kornay ma imaanaysaa Jim oo u muuqda waxa soo dhan in uusan niyad u haynin ayaa ugu jawaabay maya saaxib xaafadda leh hore iigay Barb markii intaas uu maqlay hadal kale kuma celin xogaa yar kadibna wuxuu aaday dhanka guriga waalidiinta Jim maadaama xilliga ugu wardambeysay uu ogaa in Jim uu la noolaa reerkiisa isla markiiba Jim ayaa dhanka Barb u soo jeestay una dhahay maya halkan ma degni wuxuu u tilmaamay xaafad kale oo yara magaalka gees kaga taala duurna ah in uu geeyo wixii la sii socdaaba ugu dambeyn marka ay u dhawaadeen xaafadii Jim ayaa yiri halkan igu daji waan ku faraxsanahay inaan mar kale ku arko wadada dhaxbartamaheedana ayuu kaga degtay sidii ayuuna mugdiga wadada ugu qarsoomay Barb uu iska soo baxay xaafadooda ayuuna iska yimid turbadiiba waxa meesha ku sugayay asxaab badan oo muddo ay isugu dambeysay wixii la iska caweeyaaba Barb ayaa bilaabay in asxaabtiisa u weydiiyo yaa kaloo imaan raba caweyskan wuxuu kaloo ku daray in meel heblaayo ku soo arkay Jim misna uu horay u soo qaaday ugu dambeynna uu kaga haray xaafad kale marka hadalkii uu sii dhameynayay qof kasta wuxuu bilaabay in uu indhaha taago misna dhankiisa soo eego iyagoo indhahooda aad ka dheehan karto sida ay ula fajaxsan yihiin hadalkiisa Barb inta uu yaabay ayuu yiri maxaa qaldan mid kamid asxaabtiisa ayaa ku dhahay Barb sidee wax u wadaa Jim wuxuu ku dhintay shil 8 sano ka hor oo isla wadada aad sheegaysa ayuu ku galay shilkaasi dhammaan dadka meeshan joogana janaasadiisa way ka qayb qaateen معقول maahan sidee ayay waxaasi suuragal ku tahay Barb uu aamini waayay hadalkii saaxiibkiisa wax yar ka hor ayuu Jim shakhsi ahaan u soo arkay misna la soo sheekaystay xitaa adigu maxay kula tahay haddii uusan Jim ahayn yuu kaloo noqon karaa waxaan rajeynayaa in muuqaalkan uu ku cajab geliyay halkan ayaan kaga baxayaa waa inoo muuqaalka kan xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh amaana allah